daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii ugu dambeeyay ee howlgallada ka dhanka ah kooxaha qawaarta ee al-shabaab ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolada dalka. war haatan aynu ka helnay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan dhanka dhaca dhulka xeebta ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka iyo ciidanka deegaanka iyo kuwa haramcad ay howlgalladii ugu ballaarnaa ka sameeyeen tuulooyin hoostaga Gandarshe Jilibmarka ilaa Dhanaane. howlgalladan oo maalmahan si xawliya uga soconayay deegaanadaasi ay ciidamadu waxay ku guuleysteen in ay gubaan goobo fariisimo u ahaa kooxda qawaarta ee al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa difaacidi ugu badnaa maanta waxay kala kaceen kooxaha nabadiidka ah waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen dhowr fariisimood inay ka saaraan nabadiidka al-shabaab. dhanka kale howlgalka waxa barbar soconaya duqeymo xoogan oo dhanka cirka ah oo ay dowladda Soomaaliya ka taageereen dhanka cirka ay ka geysanayeen deegaanadaasi. xalay waxa deegaano ka tirsan gobolada dalka qaasatan goobaha ay ku dhumaalaysanayeen nabadiidka al-shabaab ee ku kuliyay Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ka dhacay duqeymihii ugu xooganaa oo la bartilmaameysaday koox ka tirsan nabadiidka al-shabaab. Shabeellaha Dhexe duqeyn ka dhacday xalay waxa goob ay ku shirsanayeen nabadiidka al-shabaab la duqeeyay waxaana goobtaasi ku sugnaa afayeenka kooxda argagixisada ee al-shabaab Cabdicaziz Abu Muscab. warka ayaa sidoo kale waxay sheegayeen halkaas ay kula sugnaayeen saraakiil kale oo ka tirsan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. howlgalladan maanta ka dhacay Shabeellaha Hoose ciidamadu waxa ay ka gaareen guulo aad waaweyn waxayna ciidamadu maanta ay ku sii fideen deegaano hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay fariisimo u ahaayeen kooxda nabadiidka ee al-shabaab. goobaha maanta ciidamadu ay howlgallada ka sameeyeen waxay hoos yimaadaan deegaanka Dhanaane waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay qaarijiyaan 8 dagar qabo oo ka tirsan kooxda qawaarta ee al-shabaab. ciidanka ayaa sidoo kale waxay ku guuleysteen inay guud ahaan bacad ka mariyaan fariisimo kooxaha nabadiidka ay ku leeyihiin halkaasi waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in hub iyo saanado military ay ka furtaan kooxda nabadiidka ee al-shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. howlgalladii maanta ciidamadu ay sameeyeen sidoo kale waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan saanado military hub oo ay ka careen kooxda nabadiidka ee al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi oo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu kula dardaarmay cutubyadii dhawaan ka yimid deegaanadaasi waxaana cutubyada loo kala qaybiyay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jananku uu kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha qawaarta al-shabaab. jananka oo ciidan aad u tiro badan kula hadlay Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka looga baahan yahay inay dhaqaaqaan ayna ka sifeeyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab deegaanada farqutiriska ay ku dhumaalaysanayaan. wuxuu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatanba amar u qabaan inay ku duulaan goob kasta oo fariisin u ah kooxda qawaarta ee al-shabaab. sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo isna ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa wuxuu halkaasi ka wadaa abaabulkii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha qawaarta ee al-shabaab. maalmahan baa kula saraakiisha ciidanka macuusleyda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka isagoona amar ku siiyay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aynu ku dhaqaaqaan goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay in ku dhuumal. janalkeena Galcad TV ayaa sidoo kale wuxuu soo ogaaday in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta ay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku guuleysteen inay deegaano muhiim ah ka saaraan kooxda nabadiidka ee al-shabaab deegaanada soo yimaada deegaanka Califool dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay maanta ku guuleysteen howlgallo ay ka sameeyeen deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe inay gubaan gawaari dagaal oo nabadiidku dhulka hawdka ah ay u dhaxeeya degmooyinka Aadan Yabaal iyo deegaanada hoos yimaadaba halkaasi ay ku gubeen waxaana ciidanku sidoo kale howlgallo lagu baacsanay nabadiidka al-shabaab ay ka sameeyeen tuulooyin dhowr ah hoos yimaada degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. labadaasi degmo Masaajid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal waxay ka mid yihiin goobaha sida xoogan ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ballaaran ee lagu baacsanay nabadiidka al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay wadaan gulufkii ugu xooganaan oo ka dhana kooxaha qawaarta waxayna ciidanku ay guud ahaan bacad ka mariyeen fariisimo dhowr ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka al-shabaab. duqeymihii xalay ka dhacay Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose waxa lagu bartilmaameysaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan nabadiidka waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku guuleysteen in deegaano hor leh ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ee al-shabaab. taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Hiiraan iyo taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka oo isna jooga gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay kulamo la kala leeyihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi waxa ayna amreen in goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan qawaarta al-shabaab inay ku dhaqaaqaan ay la dagaalaan kooxdaasi.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa abaabulkii ugu dambeeyay waxa ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe cutubyo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidanka Gorgor ayaa waxa ay gaareen Shabeellaha Dhexe cutubyadaasna waxay ahaayeen cutubyadii dhawaan tababarka loo soo xiray saraakiisha ciidankan hogaaminaya ayaa waxa amar loo siiyay inay ku dhaqaaqaan goobo kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadgelyada al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan ku sii jeedaan fariisimo dhowr ah oo ay joogaan kooxda argagixisada al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxa ka soconaya dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee lagu dagaalamay cadawga argagixisada waxayna ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen halkaasi ama deegaanadaasi ay ka sifeeyaan nabadgelyada al-shabaab wararka aynu ku helayno aadan yabaal iyo masaajid cali guud ayaa waxay sheegayaan in kooxda nabadgelyada ay iskaga bixeen deegaanadaasi iyagoo ka cabsi qaba weerarka iyo duqeymaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaanadaasi waxayna sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee haatan ay la hadlayo oo habeenimo ah dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee ka wadaan guud ahaan gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Hiiraan Mudug iyo Galgaduud iyo Jubbooyinka halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay goobo ay ku dhumaaleysanayaan nabadgelyada al-shabaab sidoo kale waxa howlgaladii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose u soo laaban ama falaqeeyaan ku bixin ciidanku ay ku guuleysteen in deegaanka dhanaane ilaa tuulooyin hoostaga 15 tuulo oo ka deegaanka dhanaane in ciidanku ay ka sameeyeen gulfiyo xoogan oo ka dhana kooxaha qawaartay al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cagta mariyeen dhowr fariisimood oo nabaduudku ay ku xanayeen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab waxayna ciidanku ay ku guuleysteen inay dhowr jiha ay ka weeraraan fariisimo dhowr ah oo nabaduudku halkaas ay ku lahaayeen maalmahan ciidanku waxa ay gaariyeen guulaha aad u waaweyn waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ay cagta mariyeen guud ahaanba fariisimadii nabadiidku ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose waxayna sidoo kale ciidanku howlgalada ay ku qaadiyeen horjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan kooxda qawaarjaha al-shabaab warka sidoo kale waxay sheegayaan in gobolka Hiiraan dhaqaaqyadii ugu xooggan ay ka soconayaan qaasatan tuulooyin hoostaga degmooyinka Maxaasi Moqokori oo ay faaruujiyeen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyadoona ciidanku maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda ay gudaha u gali doonaan degmooyinkaasi warkaynu ku helayno degmooyinkaasi ayaa waxay sheegayaan in kooxdu ay gadaal uga baxday degmooyinka ama degmadooda ay faaruujiyeen waxayna sidoo kale aadan yabaal iyo tuulooyin hoostaga sidoo kale wararkan ku helayna sheegayaan in kooxdu ay guud ahaanba ay ka baxeen degmooyinka Maxaasi Moqokori ayaa kamid ah goobaha nabadiidka ay faaruujiyeen iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan guud ahaan ku hayaan deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan qawaartii al-shabaab Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan waxa si xawli uga soconaya howlgallada lagu baacsanayay kooxaha nabadiidka ee al-shabaab howlgalkan ayaa waxa loo bixiyay howlgalka aamusan waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaanba maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ballaaran ka ay ku guuleysteen inay ka sifeeyaan kooxda qawaarjaha al-shabaab Hiiraan ayaa kamid ah goobaha sida weyn dhaqdhaqaaqyada ciidanku ay uga wadaan waxaana shacabka Soomaaliyeed saacadaha soo socda dhagahooda ay ku maqli doonaan deegaano muddo dheer ee gacanta ku hayeen kooxaha nabadiidka al-shabaab oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala wareegeen qawaarista ciidanka ayaa maalmahanba waxa ay wadeen lufidii ugu xoogganaa oo ka dhan nabadiidka al-shabaab waxayna guud ahaan gobolada dalka si xawli uga soconaya dhaqdhaqaaqyada xooggan ee dalka looga sifeeyay nabadiidka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay kulan la yeeshay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qadka taleefankana kula hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa wuxuu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanku ay dhaqaaqaan ayna ku dhaqaaqaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan qawaartii al-shabaab mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu xusay in taliska xoogga dalka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay in guud ahaanba uu howlgallo ballaaran ka bilaabo ama amar uu ku siiyay in howlgallo ballaaran ay ka bilaabaan goobaha lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab guud ahaan gobolada dalka waxa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jubbooyinka ayaa kamid ah goobaha sida weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga wadaan dhaqdhaqaaqyada xooggan ee ka dhana kooxaha qawaartii al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka bilaabeen howlgalladii ugu xoogganaa oo dalka loogu sifeynayay nabadiidka al-shabaab Jubbooyinka tuulooyin hoostaga hadaynu aan hal laba ka sheegno Janay Cabdalli iyo tuulooyin hoostaga ee ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen waxayna ku guuleysteen in halkaas ay ka sifeeyaan qawaartii al-shabaab sidoo kale jilib iyo tuulooyin ku dhow ay ciidamadu howlgallada ay ka sameeyeen waxayna ku guuleysteen halkaas inay ka sifeeyaan qawaartii al-shabaab saraakiisha ayaa u xaqiijiyay in guud ahaan gobolada dalka haatan ay si weyn uga wada soconayaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha qawaartii al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhowr jiha ay ka weerareen deegaanada iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka ay halkaas lagu tuunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab daawadayaal howlgallada ka dhanka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka soconaya gobolada dalka
markastaba waxaanu ku dadaali doonaa inaan idinkugu soo gudbino sida ugu dhaqsiyaha badan iyo goobaha ciidamadu ay ka sifeynayaan kooxaha khawaarija al-shabaab iyadoona guud ahaan gobolada dalka haatan ay ka bilowdeen abaabulka ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ah iyadoona ciidanku ay guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa ay ka wadaan gobolada dalka hadduu janalkan kusoo gaaro subscribe inoo saar meel fogna gaarsii muuqaalka waa mahadsantihiin